waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan degmadiisii oo maanta wanqalkii lagu sameeyey oo khamiis tahay degmada Dacarta gudoomiye degmada Dacarta waa degmo beeraley u badan waa dad xoolo dhaqato u badan waa dad ganacsiga aad ugu fiican waa degmad ballaaran oo 28 tuulo ayay xukuntaa marka ku soo dhawow waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo walqasha degmada Dacarta oo hadda ku suganahay waxaan ka cudur daaranaynaa inaan ka soo daahay munaasabadii weyneed ee xafladda ahayd ase yeeshee alla barigii iyo ducadii waan soo gaaray qadadiiba marka taa horena waa ka raadi gelinaa dadka waxaan u niminaa dadka kala qayb galo munaasabadda farxadda ah iyo inaan hambalyeeyno anuu ma soo habsaamee saraakiishii xisbiga oo dhammi way joogtay labada dhinacba waxaa taagan saraakiishii ka soo qayb gashay munaasabadda ee goobjooga ahayd ee ka qayb qaatay dhammaan xafladdii siday bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii waxaan shacbiga la wadaagayaa walqashaas munaasabaddaas iyo farxaddaas waxaan u rajaynayaa degmadan insha allahu inay noqoto degmooyinka kora ee Somaliland waxaan arkay hoolkii aan ku qadanaynay kulli waxaan isleeyahay degmooyinka inta badani hool intaa leeg ma laha marka waxaad muddo hore markuu ku soo bilaabmay waxaan runtii hambalyeynayaa dhammaan odayaasha deegaanka oo ugu horeeya Suldaan Axmed Daahir suldaanka guud iyo dhammaan salaadiinta kale iyo madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan iyaguna halkan jooga iyo shacbigaba waxaan leeyahay hambalyo insha Allah degmadii barakowdana Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin halkan waa degmadii Dacarta waa 13 bishii Muharram 1439 oo waafaqsan 5 bishii Oktoobar 2017 aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo nagu soo sharifay oo nu ku casuumadinay inay noogu yimaadaan oo na soo sharifaan waxay noo sheegeen dibdhacoogaas inuu ku yimid hawl xagga transportiga ahayd ama hawl kale oo lahaayeen waa ka gudoonay habsankaasi meeshana waxa weey waa degmo beeraley oo dhaqankeeda iyo nidaamkeedu uu yahay wax soo saar magaaladu waa magaalada koraysa waa magaalo u baahan wax qabsi saddexda xisbi qaran dawladda shicibka ganacsatada cidii wax ku darsanaysa aasaaskeyga imanka wadada soo marteen waa 35 kilomitir kolka laga soo dhaadhaco laamiga waxay u baahan tahay in la qorsheeyo waxaan nusaacahayn baynu ku gaari lahayn haddii wadadaas ay toos tahay waxaanu uga fadhinaa gudoomiyaha iyo ciddii kale danaynaysaba Somaliland horumarkeeda inay ka qayb galaan oo iskuuladeeda caafimaadkeega wadooyinkeega meel wal oo maanta Somaliland nin Somalilander ama inaan ay ku nooshahayba in maamulku u soo dhawaado oo wax lagu darsado oo la tabantaabiyo oo iskuulkii iyo caafimaadkii iyo wax la wixii bulshada ay u baahnaydba laga helo gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay waananu kugu soo dhaweynaynaa raallina waanu ka nahay insha Allah bismillahil kariim waanad mahadsantiin wajazaakumullahu khayral jazaa